sidaas daraaddeeda acdaada islaamka gaalada iyo atbaacdooda waxa ay ku dadaalaan waxa ugu weyn in ummadda luqada carabiga laga fogeeyo oo ummadda luqadaha ajnabiga ah ee luqada ingiriiska ugu horeydo ay ku mashquulaan sidaasay dhaqaalahooda ku bixiyaan siyaasadooda ku bixiyaan xoogooda xoolahooda ku bixiyaan xoogooda xoolahooda waxay og yihiin dadku hadday diinta ka fogaadaan waxaan rabaa dadku hadday luqada carabiga ka fogaadaan diin waa kala harin ayala diintoodu waa luqa carabiya way og yihiin nin madarase Soomaaliya ku taala mas'uul ka ah wuxuu yiri hay-adahan kirishtaanka ee waxa weyn dacwada shaydaan wata ee tansiiriga ee kirishtaannimada ummadda ku beera hay-ad kamid ah noo timid kaasay tiri mawaada iskoolka aad ku dhigaydaan luqa carabiya ku bixi waxaan rabaa luqa ingiriisiga ku bixi anaguna macallin walba dhaqaalaan siinayna sheerkan waxaan ka bixinayna $100 macallinkiiba ugu darayna mushaarkaad siidaan sheerkan wax ka baxayn idinkana waxaan ka rabnaa mawaada aad bixinaydaan luqa ingiriisiga ku bixiyo oo iskoolka waxaad ka dhigtaan iskool luqa ingiriisiga ku baxa ka dhiga marka waxaan yiri mawaadan iyo muqarrarkan annagu diyaarsanay miyaan dhigaynaa mise idinka noo keenay wax la dhigayo ma idin faragashayno muqarrarkan idinku diyaarsateen dhiga laakiin luqa carabiyaha ku dhiginin ee waxaad ku dhigtaan luqa ingiriisiga dhaqaalaha intaasan ku ogol markay waa weydiinay kadib waxaan niri noo sheega danta ku jirta juhdi ku bixinay nin kamida marka dadku isku mid ma ahan sii daayay kalimadii makriga ah wuxuu yiri ardagu luqadu wax ku barto idaacada ku hadlaydu dhageystaa ardagu luqada uu wax ku bartay ee dugsiga sare uga baxay ama dugsiga dhexe ama jaamacada journaalka ku qoran akhriya buuga ku qoran akhriya marka waxa weeyaan weligeed hal xaraf oo gaalnimaha dadna u dhigin luqada kaliya dad noo bartaan bari ardagaas annaga iska mid hayla bari ardagaas wuxuu aqrinayaa wixii ingiriis ku qoran wuxuu aqrinayaa ida wixii haada buug haada journal wuxuu dhageysanayaa wixii ingiriis ku hadlaya wuxuu ummadda haday meel iskugu timaado la sheekaysanaya kan ingiriiska ku hadlaya waxa ingiriis ku qoran aayad iyo xadiis ma fiqh islaamiya ma waxa ingiriis ku qoran ma aha soo ma jeedid idaacada ingiriis ku hadlaydana tafsiir soo deeymi ma han tafsiir waxa socda soo ma jeedid marka mustaqbalka fog ardagan annaga luulay annaga xageenu u dhacaya xageenu u leexi doona mustaqbalka fog soo ma jeedid wa ficlan waana dhacday غيركنا وارك انغنا وارك حقود u dhacaya wax xaqiiq hadaan ilaahay badbaadin way soo ma jeedid qaar ilaahay badbaadiyo way jira laakiin qaar badan inay xaqoodu u dhacayaan xaqiiqa